السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي أصحابتا ملك صوتون كجوكتين وحنا دين لي هاي مرحتي أتصال عوتي سينا ودا أديكو عافمات خبا سي الحمد لله ربي قادو محد علي إن مركان صوت ديجي مقالكي سقالك صفون وحادث بدل يسوي دي سؤالو ولو صدح مركا سؤالها سيان ربائنا كجوابه هيسوي ديين يعني خضبضة قفك علامة قفك كجعل علامة لو كرتو يعني أنا waxaan soo qiyaasay 7 laakiin 7 way badan yihiin bas waa in kamid ah waxa kuuka ah qofka ku jecel oo ku soo xariiqiya marka jirato marka xanuunsato marka fiican tahay marka mashquusho oo ku soo xariiriya waxa ku leeyahay waxa geega shay xagee aaday labada maalin waa lagu waayay mid labaad adiga iyo asaga qof xaasid hadoo idin soo dhaxgalo runta ayuu u sheegaa marac raaco xaasidka warkiisa iyo waxaas marac raaco mid saddexaad sharaftaada ayuu ilaaliyaa ma ahan dadka gadaalka toogta oo intay kula jiraan ka socdo oo meel kale ka aad ama kala si kala ku sheekeeya ninkaas ka soo aha ama ka soo aha isna ku yeesa ma ahan mid afraad horumarkaaga ayuu ka tiriyaa markasta oo arko waxyaabo horumar aad sameynaysid oo aad sii socdid oo ku farxaa isla markaana uu ku sii dhiirigeliyaa mid shanaad daruufahaaga ayuu gartaa daruufahaaga meelaha daruufaha ka qabtid ayuu gartaa asagoo si kale uu eegaynin hadalka mid lixaad beenta ayuu ka dhowraa beentu ma sheego haduu mashquulsan yahay wuxuu ku dhahaa waa mashquulsanahay hadii kalena yani wuxuu ku leeyahay inuu hay sidaas wax ku jiraan saas waaye yani wax been ah kuma sheego xalaya adoo aday eebtaada qarsoonto 100 maalin uu soo baxdaa marka sidaas daradeed qofka adiga ku jecel oo si daacad ah ku jecel been kuma sheego mid ugu dambayso oo ah mid toddobaad waa kaamo mashquulo qofka ku jecel haduu mashquulsan yahay xataa ugu yaraan hal sac maalintii uu ku siinaya isagoo jecel mar walba inuu kula hadalkaaga ileen waa uu ku jecel yahay fadlan subscribe noo saar haddii aad nagu cusub tahay share videoga like noo saar waa mahadsantahay